ardayahay cilmigu waa iftiinadama hagay marna waa awoodaad filka kaga adkaatay waa sida aroor iyo shamsi iyo ogta waa beriye waa guri ugbaadood gadaal ku ilsamaatay waana aalad lagu xoogsado lagu adeegtay waxaynu ku jireen waxyaalihii loogu cudur daarayay qofka jumcada iyo jamaacada ka tegiddeeda wayucdaru waxa kaloo loogu cudur daarayaa baa sheekhu yidhi cinda tamriid cinda almaradi cinda almatari waalmaradi waatamriid marna waa asbaabaha nafluhu ku intiqaalaane marna waa ilayso xaqa lagu ogaaday الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر وحياري لو عذر داري قفقا جمعة إيا جماعة كتجديدة ويعذر وحكرا لو عذر داري أبا الشيخ يري عند التمريض عند المرض عند المطر والمرض والتمريض marka qofku qof xanuunsanaya oo cid ilaalisa aanu jirin dee uu markaa qofkii rogrogaya ee uu ilaalinayo oo inuu ama meeshii ka soo dhaca laga yaabayo amaba yacni dee inuu isbaktiyo laga yaabo dhibaata inuu ku timaado laga yaabayo kaana ayadana waa uga hadhi karaa لأنه waxay leeyihiin xifdu اlaadami afdal min xifdi اljamaaca ilaalinta markaa bini aadmi in la ilaaliyo la xifdiyaa ka fadli badan jamaacada ilaalinteeda wa ishraafi alqariibi wa cinda ishraafi alqariibi qofkii qaraabada ahaydeen wa naxwihi iyo ka qaraabada kii la midkaa markuu dhawaado cala mowti geeri qof aa qaraabo tihiin oo qaraabadaadii ah ama qariibkaa dee mid la mid ahoo dee ama saaxiibka ama xidid aad tihiin ayaa markaa geeri u dhowaaday oo aad dul joogtaa dee intii la odhan lahaa wuu iskaga tegay oo dankama leh inaad markaa la joogto ay jamaacadu ku dhaaftaa waa mid furan waalkhawfi wa cinda alkhawfi iyo cabsi agteed markuu jiro calaa nafsihi u baqanayo ow maalihi u baqanayo ow cirdihi uu baqanayo nafdaadii baa wax la yeeliba haddaad jamaacada u baxdo maalkoo dukaanka yarba waa lagaa jabsan haddaad ka baxdo cirdigiisi iyo sharafdiisi iyo dhegtiisii ayay wax soo gaadhi doonaan haddii cabsidaasi iyadana ay jirtana ayadana waad uga tegi iyo dee masalan imika waxyaalo fara badan oo la mida dee ayaa jira oo qofku xataa hadduu dee cunto iyo raashi karinayo ama yacnii moofo uu hayo oo uu ka baqanayo markaa dee wixiiba inay sii shufbeelaan qofkii haddaabuu dhakhtar yahay oo dee uu qof markaa farihii ku hayo yacni waxyaalo badanoo kuwan ay sheegayaan markaa la mida ayaa jira wa mudaafacati alxadai laakiin inay dee dhakhaatiir ayaga lafdoodana jamaca ilaaliyaan oo inan baa wuxuu igu yidhi maalin dhakhtara sheekh markaan ama dadka ilkaha ama waxyaalaha kala noqon dee jamacii baa nagaga soo beegmaya dee marka horeba waxaan ku idhi idinka eega oo dee ha gelina hadday suurtagal idiin tahay dee mid jamaca idinkaga beegmaysa yar dibdhiga oo waxaad tidhaahdaan intan hawshanaa si yar qabanaya hadhow hawshaa dheer markaa salaada dabadeed baan gelaya ile qofku adduunya un inay qaadato xaggan un ha ka doorbida maahee waa inuu eega oo hawshii markaa dheeraanaysa dee xilliga jamacu markaa inuu ka yar duwa ayaa wanaagsan wa mudaafacati alxadai xadadka marka uu qofku dee riixayo ee uu difaacayo ama kaadibaa haysa ama yacnii caloosha oo kale ayaa laga hayaa markuu waxyaalahaasoo kale hor taagan yahayna ayadana waa ka dhacaysaa jamaacadii ama jumucadii laakiin waa maca sicati alwaqti cudurdaar waxay ahaanaysaa marka wakhtigu waasic yahaye haddii markaa intaad waxaan iska soo faaruqiso aad soo gaadhayso salaaddii markaa
haddiise wakhtigii salaaduba baxayo dee waa inaad markaa salaaddii tukataa kadibna aad markaa waxaa iska tafriiqintiisa aad u banbaxdaa waa haddaanay dhib ayada lafteeda kugu ahayn hadday qofka dhib ku tahayo dee calooshii laga majirayo onay suurtagalahaynba inuu tukada xataa wakhtiga salaaduba ha baxee qofku markaa wuu iska soo tafriiqinaya waxaa nabigeennu sala allah alay slam wuxu uhi laa salaata bixadrati طacaami walahuwa yudaaficu alakhbathaan salaad yacni dhammaystiran ma jirto raashin meel uu yaallo iyo isagoo labadaa xunxun qofku riixayo oo hor taagan laakiin waa maca sicati alwaqti buuli wa shiddati aljuuci wa shiddati alcatashi waxaa kaloo ayaana loogu cudurdaarayaa markaa gaajo iyo oon darani jiro wa shiddati alxarri kulayl darani jiro waalbardi qabow daran wa shiddati alriixi bileyli habeenkii dabayl darani jirto wa shiddati alwaxali dhooba ama dhiiqa marka ay jirto darani wa safari rufqati iyo rafaqadii dadka ahaydeen markay socdaalayaan waxaa kaloo loogu cudurdaaraya abuu sheekhu uhi wa shiddati aljuuci wa shiddati alcatashi marka qofka dee gaajo ama oon darani hayo dee wixii la cabbaya ama wixii la cunayeyna meesha uu yaallo dee wax ka mancinayoo saa soom oo kale amaba dee wax ka hortaaganna aanay jirin wakhtiguna markaasuu waasic yahay marka waxaa leeyahy iska soo cun xataa yacni jamacuba ha ku dhaafee le'annu salaadda waxaa la rabaa khushuuc inuu qofku ku tukado oo waataynu khushuucdaa soo marayna waa ruuxu salaa waxaanoo dhammina khushuucdii bay kaa kaxaynayaan wa shiddati alcatashi wa shiddati alxarri kulayl darani marka ayana jirana ayadana cudurdaar iyuu qofku leeyahay jamac iyo jumcadiiba uu kaga hadhi karo walbardi iyo qabow darani isagana ma jiro habeen iyo maalin midkuu doonaba ha ahaadeen le'anno kulayl iyo qabow mashaqada ku jirta dee tii roobka way ka daran yihiin roobku waaba ku qaboojinoo haddaad iska wada qoydo dee waabaad iskala socon laakiin kulaylkan iyo qabowgani aad bay u halis badan yihiin wa shiddati alriixi bileyli dabayl daran oo habeenkii ah walow yaanay qaboobaaninbe ayaduna waa cudurdaar wa cinda shiddati alriixi bileyl waana habeenkuuna maalintii maaha maalintii mashaqada dabayshu ma badna laakiin waxay ugu daran tahay markay dabayshu habeen tahay sidaa daraaddeed baa shiddatu riixi bileyli ama shiddatu riixa ayuu tahay inuu cudurdaar fii tarki aljamaaca laa fii tarki aljumuca le'annu waa habeenun habeenna jumca ma jirto ee waxay u tahay un salaadaha kale wa shiddati alwaxali dee dhooqadii darrayd waxalku waa dhooqada ama dhiiqada lagu limanayo dee meelaha qaarkood baa magaalooyinkeenna dhulka weliba dhoobaydaa hadduu roob yari dee aan qofba dhaqaaqaynin dee hadday taasi soo maraa qofka ama inuu dee maryihii kaga wasakhoobaan amaba isagiiba inuu ku dhacba ay suurtagal tahay markaa dee qofkii waa kaga tegi karaa laakiin dee farsamooyin bay sameeyeenoo kaba dhaadheer bay u samaysaanoo haddii dee farsamadeedii lala yimaado dee iyada qofkii jamaacadii waa ku tegi markaa waataynu soo tilmaamaynayba dee biyaha qabowga markuu qofku weysaysanayay waa marka uu waayo biyihii wuxuu ku diiriyo ama wuxuu isku dada ha dhowta markuu la'yey ayuunbuu qofku qabow u gebagabaysanaya dee tan dhiiqadana haddaanan farsamadeedii haynin ayuunbay cudurdaar kuu noqonaysa haddii kabaa dhaadheeree farsamadoodii aad hayso oonay waxba dhibaato kaagamin waad tegaysaa jamaca wa safari rufqa waxaa kaloo acdaartii ka mida dee dad baa wada safrayseen qoladii baa dhaqaajinaysa gaadhigii baa dhaqaaqaya diyaaraddii baa kacaysa dee jamacii markaa intaad iskaga tagtaa baad markaa gaar isaga tukanan oo aad markaa iska socon wa safari rufqa le'annu ka hadhidda markaa rufaqada uu ka hadho waxsho iyo mashaqo iyo dhibaata ayaa la arkaa inay ka soo gaadho faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saari weye fiima taqadama wa fiima sayatii fii shuruudi sixati اljumuca jumcada ansixiddeeda shuruuddeedii ayuu halkana sheekhu inooga hadlayaa wa shuruudu اljumucati an takuuna kulluhaa fii waqti الظuhr
dhammaanteed waa inay wakhtiga duhurka waa inay tahay wa an tuqaama waa in lagu ogaa fii nafsi albaladi beledka nafdiisa dhexdiisa waa in lagu ogaa wa an laa tuqaama qablahaa waa inaan la oogin jumucatun fii tilka albaladi beledka waa inaan jumco lagu oogin kale wa an tusallaa jamaacana waa in lagu tukadaa waxau sheekhu leeyahy raximah ullah tacaala wa shuruudu ljumucati jumcada shuruuddeedu ka dheeraada shuruudihii kale loo shardinayay salaadaha kale wuxuu uhi an takuuna kulluhaa salaadan duhur ee jumcada oo dhan macal khudbadaheedu waynay fii waqti duhr salaadda duhur wakhtigeeda waynay dhacaan waayo nebigeennu sala allahu calayhi wasalam xadiidka imaamu albukhaari warinayo wuxuu leeyahy ana nabiya sala alla alay slm kaana anas ibnu maalik baa wuxuu leeyahy ana nabiya sala alla alay slam kaana yusalli aljumucata xiina tamiilu shamsu cadceeddu markay iilatay xaggan bartamaha samada ka weecato ayuu tukan jiray kaasi waa mid haddii ay markaa ka celiliyoontana dee duhur baa la yska xidhanaya haddii ayagoo ku jira duhur salaaddii ay baxdana duhur bay dhammaystiri bay yidhahdaan wa an tuqaama waa in lagu ogaa fii nafsi albaladi beledka nafdiisa fii khudati abniyati almujamiciina safiina miyaa kaynu saa ku soo marayn oo fii khudati albaladi ayay nusa qaarkooda ka cabiraan macnaha waa in magaalada dhexdeeda lagu ogaaye bannaanadaas iyo markaa meelaha yare dhinacyadaa u go'an ayay markaa diidayaan meelaha dhisku uu yahay iyo meel kastoo ka tirsan waa inaan lagu ogin bay leeyihiin meel qofka socotada ah markuu ka baxo uu salaaddii ku qasrinayo halkaasoo kale waa inaan lagu ogin meelaha aanay bannaanayn salaadda in lagu qasriyo ee dee magaalada dhexdeeda waa in lagu tukadaa le'anna waxay leeyihiin wakhtigii nebiga sala allahu calay waslm iyo khulafadiisii dee halkaa ay deggan yihiinee magaalada dhexdeeda unbaa lagu tukan jiray salluu kamaa ra'aytumuunii usallii baana nebigu sala allahu calay waslm yidhi wa an laa tuqaama waa inaan la oogin qablahaa horteed jumucatun fii tilka albaladi beledkaa waa inaan jumco kale lagu oogin macnaha waxay leeyihiin dee wakhtigii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo khulafadaba dadku hal meel ayaa jumucada lagu wada tukan jiray waxaana markaa loogu wada tukanayey dee waxaa la doonayaa ilan waa ciidul usbuuc in dadku ay isu wada yimaadaan ay meel isugu wada yimaadaan midnimadoodiiyo shicaarkaasi muuqdo imaamka muslimiintaa tukinaya wixii markaa dadka uu farayo wixii xanuun hore iyo mashaakil dhacay wiigga inuu ku daweeyo wixii wiigga soo socda loo baahan yahay in la fara ee dadka lagu wacyigeliyo waa inuu ku fara markaa ummaddii waa inay meel isugu wada timaadaa haddayse koox yaroo waliba meel u go'do dee ummaddii markaa waa kala firaysaa kelimaddeediina midaysmi mayso laakiin waxay yidhaahdeen waa marka ay suurtagal tahay dee hal meel in lagu wada tukado haddiise aanay suurtagalayn hal meela in lagu tukado waxaa la yidhi kolba sida ay baahidu tahay ayaa loo kordhinayaa marka iyada oo hal jumco qudha magaalada ay qaadi karta haddii jumco labaad la oogo waxay leeyihiin taa horraysay ayuunbaa saxiixo noqonaysaa wixii ka dambeeyey waxba kama jiraan weeye hadday labaduba isku mar dhacaanna labaduba baatil bay wada noqonayaan markaa jumcadu wax sahlan ma aha in markaa wadaad waliba intuu masaajid yar markaa iska samaysa ama xuurtayso udhaa jumcadii baan idin tukinaya ma aha waa in la qiyaasaa oo xaafaddan iyo intan masaajidkan ma qaadaya hadduu dadkii qaadi waayo meel ay ku kala tukadaan la waaya haddana waa in mid labaad la tagaa la sameeya laakiin iyadoo mid xaafaddii wada qaadaya haddii afarta koonaba midba in yar u goosto dee markaa ummadda markaa midnimadeedii baa markaas lumaysa waxa laga midba inuu midka kale wuxuu soo sheego iyagu iska hor yimaada baa dhici karta marka waa mas-uuliyadda dee maamulka iyo wasaaradda diintu ay markaa leedahay weeye
marka waa an laa tuqaama qablahaa jumcatu fii tilka albad waa marka hal meeli qaadayso wa an tusallaa waa in lagu tukadaa jamaacana waa in lagu tukadaa ee salaada jumcadu iyadu furaado iyo keli uma ansaxdo li'annahu fii jamaaca xadiidkii aynu soo maraynay aljumucatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin fii jamaaca inuu ku tukado waxaa kaloo sheekhu uhi wa an yakuunuu waa inay yihiin kuwaa tukanaya 40 dakaran lab mukallafan oo qaangaadh oo caqli xuran oo xuran mustawtinan oo ka wadan yeeshay meeshaasoo deggan oo laa yadcanu aan ka guurayn shitaan walaa sayfan kulayl iyo qabowtoona ilaa lixaajatin xaajo iyo baahi sida ganacsi iyo booqasho iyo mooyaane 40 shuruudda laga helay oo lab oo qaangaadh oo caqli leh oo xora oo meeshaa deggan waa in lagu oogaa imaamu nawowi majmuuca waxa uu leeyahay waxa ugu dhoweeyay ay u xujaysteen waxa markaa imaamulbayhaqi xadiidka imaamulbayhaqi iyo asxaabta kaleba ay warinayaan cabdiraxmaan ibnu kacb ibnu maalik baa aabbihi wuxuu ka warinayaa awalu man jamaca bina fi lmadiina ciddii ugu horraysay madiina nagu jamciyey sacad ibnu zuraara ayuu jumca nagu tukiyey intaanu nebigu madiina soo gelin fii naqiici alkhadimaat meeshaa imise ahaydeen baa markaa lagu yidhi 40 rajulan baan ahayn bay yidhaahdeen xadiidku waa xasano abu daawud iyo baaqiya baa warinaya markaa imaamu nawowi wuxuu leeyahay dee ummaddu waxay ku ijmaacsantahay in tiro la shardiyo asalkuna waa duhur jumcana ma ansaxaysa dee cadad uu tawqiid ku sugnaaday mooyaane dee 40 inay ku bannaanaatay oo lagu tukaday baa sugnaatay wax ka yari markaa ma bannaana waanad arkaysaa waaqicatl cayn markuu yahay wuxuu wax iska dhacay markuu yahay lama deliishado ilaa 40 noqda lama odhanin ee 40 unbay noqdeen marka waaqicatl cayn wayana lama deliishado waana dee arrin madhabkii markaa saasuu qabaayo aqwaal badan baanay culimmadu ka leeyihiin min 70 yacni 50 40 yacni wax ka badan 7 3 2 5 aqwaal badan bay ka leeyihiin culimmadu bal afartankan shaaficiyadu ay shardidayba ka soo qaad haddaba dad baa jira iminka ayagu jumca la diriraa oo ayagu jumcaha un la diriraa jumcaduna waxaynu soo tilmaannay salaad mustaqila inay tahay salaad aad u muhiima weeye nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi layantayanna aqwaamun qolyo way ka joogsanoo way ka gaabsan ka tegidda ay jumcooyinka ka tegayaan ow layakhtimanna allahu calaa quluubihim ama ilaahay qalbiyaalkooda ayuu dabooliy oo dabeetana waxay ka mid noqon doonaan kuwa qaafiliinta muslim iyo nasaa'i baa xadiidkaa warinaya xadiid kale nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi man taraka 3 jumacin tahaawunan qofka ka taga 3 jumco isagoo fudaydsanaya tubica calaa qalbihi qalbigiisaa la daboolayaa haddaba haddii ay wadaaddadaa dee ku weyn tahay jumcadu oo ay dadka isugu yeedhayaan oy odhanayaan waarkaaleya tukada magaalo laga yaabo 50 iyo 60 iyo 70 baynay joogaan iyo 100ba laakiin dee waxa jamaca imanaya ay tobaneeyihiin ba odhanayaan jumca inaguma waajibin laakiin hadday odhan waa laisu soo kaco salaada kaaleya aan jumcada tukanne 40 iyo 100ba waa la heli lahaa markaa jumca la dirirka ha la iska ilaaliyo jumca oogayaal ha laysu bedelo haddii kale dee qalbiga ayaa laga dabooli kuwa saas sameeyay jumcada la diriraya abaalmarintoodu waa in qalbiga laga daboolay qaafiliin noqdaan waa in yataqaddamaha khudbataani waa inay ka horumaraan 2 khudbo oo salaada jumcada khudba la'aan ma ansaxdo لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بينجري واحد يصلوا كما رأيتم يصلي وانتو كذا سياركتين أنا قلت كريم فاصل هذا كان فاصل في أركان الخطبتين لماذا خطبة أركانته ذي أيو فسليهين وفروض الخطبتين 15 الأول كوريا حمد الله فيما لماذا بإلهي دحوينكم هذه الثاني قال بدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وإنه كصليه
الثالث استحداء الوصية بالتقوى فيهما لما خد حوذا وإنه أدردار معبسد إلهي. الرابع كأفراد وقراءة آية في الأولى أو في الثانية وإنه مثل آية أخرى. الخامس الدعاء للمؤمنين وإنه الدعية ولو رحمكم الله بهي هذه في الثانية فقعد الله بعض. وعشاق الله رحمه الله تعالى وفروض الخطبتين 5 فرل يرغني واطن أركان الخطبتين بقرن فروض الخطبتين بقرنين هذا وايسكم من الأول حمد الله فيهما اللبادة خطبة وإن إلهيكم هذيا وهي حديث جاء إمام مسلم ورنا اليوم جابر لقوري كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله تعالى ويثني عليه وحي الخطبات النبي أمانة الجمعة إلهي بمهدين شري أو أمان شري وكان إمام الشافعي وحوليه هي حمد الله في الخطبة وواجبين وحديثها كقادرين. الثاني كلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وإن النبي يكون صليا لماذا خطبة وكان حمد يقول لماذا خطبة وشرد ورقني كسلي النبي يقول وخطبة لأنه وعلى عبادة كستا أو باهن ألا حسك رسولك صلى الله عليه وسلم وباهنطي سي آذانك إياه صلاة ورفعنا لك ذكرك يعني تفسير باكرة مركز صور اللي يحصه أذيك أنا والله يركها حسي على ذكرك أيان كوريا اللي معناه ذو الصداع. الثالث سعداء الوصية بتقوى فيهما وإنه أدر دار ما إلهي عبسيس الله بدأ خطبة ضبا لأنه مقصود كخطبة لو قد شذابا دوا إن ضدك إلهي عبسيس لفروي ووحي إلهي فرين يفرين وحي إلهي يديدين أي كده يرادان هذه بأمبارة الماميسي صدح هذا الرقني لابد خطبة وإليهين. الرابع كابرنا وقراءة آية في الأولى وفي الثانية وإنه خطبة ظهري أما طلبات وإنه آياتك آخرية آيات القرآن كم يدي وحفان سينيسا. وهي حديث جاء إمام مسلم ورنا أيوه جابر لقوله وحليه كان للنبي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. نبي صلى الله عليه وسلم لما خطبة وفري سنجري نحذو هذا قرآن كأيوه أخرين جري دتكنا ووارين جري. وحقرأ حديث يا مسلم ورنا يعلم بن أمية وحليه وحو مقال النبي يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك أيضا يسوى أخرين أيوه خطبة صار أيان مقريبون. الخامس الدعاء للمؤمنين وإنه الدعاء ولو رحمكم الله بهيدا هذا. في الثانية الطلبات أي ولي الدعاء كسي ولا سنتي ويلادين. وشروطهما شروط ذو حدبا لماذا خطبة ضد إسماعهما وإنه مغشية 40 أفرطا والموالاة حليلين على الشردية بينهما لبضل حليليهم وبينهما لبضل حدي وبين الصلاة وطهارة الحدث الأصغر والأكبر وإنه كطاهريه وطهارة النجاسة نجاسة وإنه كطاهريه في الثوب مرض والبدن الشرك والمكان يما الشباب والقيام يساق يا الشردية إن قدر حدو كريو وسطر العورة عورة أسر كذا يا الشردية والجلوس بين الخطبتين لماذا خطبة دحوذين فريسالة سنية أي شردية بقدر طمانينة حسنون قدر كذا وأن تكون بالعربية وإن عربي نتهي خطبة لماذا خطبة وبعد الزوال أنت عدد السوشي حقا إلى طير وإنه يهي. وعبد الشيخ رحمه الله تعالى وشروطهما لماذا خطبة شروط دودو وإسماعهما 40 وإنه أفرطا مغشيه عدكيسا وإنه كروا قاضايو أركان دا خطبة دا وإنه مقليان أفرطا هدو يسمى أفرطا كمدية سقالية صدم هدي كلام مركا وإنه مغشيه مركا وإنه بالفعل كم مغشيه وإنه خطبة دي مقليان. إسماعهما 40 جماعة نسى غير خطبة جماعة تراعني أفرطا جماعة دي أفرطا ويسكت جماعة وواح معروف والله قرانيو خير الله ما باحنا. والموالاة بينهما وإنه حليليا لوذي خطبه وأنو كلا صار فاصل لي رانو كلا صار أدو دي وحوقي إحنا شيء موياني
وبينهما لبدا خطبة وبين صلاتنا وين حريريا نسخ غيركود وحي odhanaya وبينهما ذا way ka dhacsan والمغالاة بينهما وين حري وبين صلاتنا وين la xiriiriya نسخ qarsaas odhanaya qaarna والمغالاة بينهما labadoodii وين xiriiriya khudbood وبينهما labadii khudbadoodii وبين صلاتي salaada dhexdoodina وين xiriiriya oo kala saarin waxa weeyaan culimadu inta uu minbarka ka soo degayo waa inuu muadinkuna oo ay kulmaan soo degidiisa qiimka dhamaaday waa nabiga sallallahu alayhi wasallam xiriirin jiray wa taharatu alhadath al-asghar wal-akbar wa inuu hadathkii yara iyo kii weyna labadaba waa inuu ka taahir yahay hadduu hadathana markaa waxay leeyahay waa inuu soo bilaaba وعبادة كلية مركا لما ظهر المدير وين مركا صابرابا ظهر سوبر كان النبي صلى الله عليه وسلم وده كنت كنشرو صلاة وهو قال يشري أمريكا غير أنتم بحمل سوم يلين شري هم سوي السنشرين وطهارة نجاسة دينا وين كطاهرية أن معفقة هين في الثوب مرض والبدن شركة والمكان يمشي وكنت أجين يهيبة يهدو قرية وحيصبا وإنه مركا وحا صدمي أي طاهر يهين هذه نجاسينا ما انصحيسو والقيام إن قدر وإنه استاكو أخريا هديو كريو وهي حديث جاء بخاري مسلم يورينا يا النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر وحليه كان رسول الله يخطب يوم الجمعة قائما سوى تاقم بخطبين الشري ثم يجلس وافر يسنجل ثم يقوم ويساقي الشري كما تفعلون اليوم ما أنت صبيسان وكرين هدول لكي خديبي كري ويساقي فرقوا سيأخذ بضين وسطر العورة دي عورضنا وإن يؤسطران تهين يقف عوردي سموقته وددنا هرتاقن دي أيضنا وقال له سهل مركا عوردي سنة وإن يؤسطران تهين سأصار مركا دي النبي صلى الله عليه وسلم إيا مركا خرفة سبعي كنتو كتشرين ضدك والجلوس بين الخطبتين لبدا خطبه خودنا وين فريستا بقدر طمانينه حسلوني قدر كيد وين فريستا صلاه قدر كي marka fariisiga yani xasiloonidii salaada rukuucda lagu xasilayay ama sujuudayna oran jiray waa inay dhaqdhaqaaqyadu kala go'aanay kala socmaan intii in leeg waa inuu labada khudbada xooda fariistaa سورة الإخلاص قدر لقى آخرين كروا إنه فريسوين هدول لكن يسقط بحياة متقولون بلقى سوق قاضية وهي حديث كان رسول الله يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس وفريسوين ثم يقوم هذا واقع كاس يوم دليله وأن تكون بالعربية وإن خطبت النقطة عربي وحلوقت هذا أركانت وإن النقطة عربي haddii aad saddexdii rugni ee khudbad walba oo ilaahay mahadintiisii iyo markaas ku salligii nabiga iyo alwasiyatu bitaqwa haddaad wax yar ka soo qaadato aayadna aad akhrido deetana waxaa ka luqa kale iska wadato hadhowna dee ducaa lilmuuminiin aad samayso waa kugu filan tahay markaa in waxoo dhan ba af carabi laga wada dhigaa ما هو انت اركانت با لغا مارمان بي علمadu yiraahdeen kollaybana in carabida meesha laga saaro ma he waa inay carabidu nasiibkeeda ku lahaato ala al-aqal waa inay khudbada horena carabi ahaataa ta kala luqad kala ahaataa daqarna waxay sameeyeen intay khudbad dheer oo dhowr bayj akhriyaan ayuu haddana dhowr bayjiba macnaynay marasay dhowr khudbood isla noqonaysaa dad kale malal iyo daal badan ka qaadaya dee inuu ninta wax yar raab Soomaaliya la iska qabsadana laga roon ee marka hala dhexdhexaadiyo dee macaaqishii ugu dambeysay ee ay carabidu lahayd haddii minbarkana laga soo dejiyo aynu xataa madarisadii marka magac yar oo Ingiriisi magaceedii u bixinay oo aynu boorkeenni oo dhan u wada bixinay meel walba ka tagna carabidina diintii tahay dee maxaa halkay inoogu hadhaysaa markaa دي waxay keenaysaa marka mid food dheer inuu iskala fuulo deef Soomaali waa akhriya dadka ama dee caaqilka ama suldaanku inuu yiraahdo isagu oo deef halka iskala fuulo nin waxba ka gareyn salaadii hadii la yiraahdo deef Soomaali waa iska daldalo marka carabidu waa inay
lahaataa qaybteeda wabacda zawaal dabadiina waa inay dhacdo labada khudbo waa inay inta cadceeddu iilatay kadib dhacdaa leannu xadiidkii aynu horeba u soo maraynay bukhaari warinayey anna nebiya kaana yusalli ljumucata xiina tamiilu shamsu markay cadceeddu iilato haddii uu laakiin akhriyo dee khudbadda wakhtiga ka hor ayaanaduna waxba kama jiraan weeye nina waa inuu dee u khudbadayahay islaan markaa ayana lama golo istawinay ayana tidhaahdo halkaa isugu soo taagto faslun wallahu aclam halkaa inoogu joogo فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست